السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeena oo ku saabsan cutubka lixaad. Cutubkan wuxuu ka hadlayaa personality, shakhsiyadda. Meaning of personality, macnaha iska leedahay shakhsiyaddu. Waxaa la yidhaahdaa the word personality, ereyga personality ama shakhsiyad is derived from waxaa laga soo dhanreeyay the word persona. Ereyga persona which has Greek and Latin roots, kaasoo leh baa la yidhaha asal Greek iyo Latin ah, and refers to the theatrical masks worn by Greek actors. Ay xidhan jireen tiyaatarka ay xidhan jireen muxuu ahaayey jilayaashii Greek. Personality has been defined. Personality-ga waxaa loo qeexay in many different ways, qaabab kala duwan. But laakiin psychologists general view guud ahaan waxay u arkaan baa personality shakhsiyaddu inay tahay as the unique pattern of enduring thoughts, feelings and actions that characterize a person. Dabeecadaha, aragtiyaha iyo dareenada iyo ficilada gaarka ah ee joogtada ee ruuxa lagu garta ayay personality ku qeexeen guud ahaan muxuu ahaayey psychology-yahanadu. Si guud. Theories of personality. Aragtiyaha shakhsiyadda ku saabsan. Personality is an area of the still relatively young fields of psychology. Personality-gu baa la yidhi waa qayb ka mid ah laamaha yar ee aan aad loo daraasaynin psychology-ga, in which there are several ways, taasoo jirta baa la yidhi qaabab kala duwan in which kuwaasoo the characteristic behavior of human beings, dabeecadda biniaadamka can be explained. Qaabab kala duwan oo biniaadamka dabeecaddiisa loo sheegi karo ay jirto. So inkastoo there are different theories of personality, aragtiyo kala duwan oo personality ku saabsan, we will see at least the three ones. Saddexdan baan arki doonaa ugu yaraan. Psychoanalytic, trait and humanistic. Saddexdaa aragti baan arki doonaa. The psychoanalytic theory of personality. Aragtidan waxay leedahay. The psychoanalytic theory was formulated by the Austrian physician. Waxaa la yidhaha aragtidan waxaa soo saaray oo qaabeeyey dhakhtar muxuu ahaayey Austrian ah oo lagu magacaabi jiray Sigmund Freud. According to Freud haddaba inagoo u eegayna aragtidiisa, personality is formed. Personality waxay ka samaysantaa buu leeyahay ama waxay ku samaysantaa within ourselves, lafahana ay ku dhex samaysantaa, arising from iyadoo ka soo baxaysa ama ka soo bilaabanaysa from basic inborn needs, baahiyo aan ku dhalanay iyo sidoo kale drives doonitaano and characteristics iyo sidoo kale dabeecado. He argued that people wuxuu ku dooday baa layidhi in dadku are in constant conflict, ay khilaaf joogta ku jiraan oo between u dhexeeya their biological urges and the need to tame. Khilaaf u dhexeeya baa la yidhi culaysyada ama doonitaanadooda biology iyo sidoo kale baahida ay u qabaan inay carbiyaan. In Freud's view, haddaba aragtidan Freud inagoo ku saraynayna, personality has three parts. Shakhsiyaddu waxay leedahay saddex qaybood, which serves a different function and develops at different times. Kuwaasoo mid kasta ay qabato baa la shaqo gaara, xilli gaarana ay muxuu ahaayey soo baxdo, oo kala ah the id, the ego and the super ego. According to Freud, inagoo Freud u eegayna baa la aragtidiisa, the way these three parts of personality interact, qaabka baa la yidhi saddexdan qaybood ee shakhsiyaddu ay isu dhexgalaan with one another, midna mid kale oo dhexgal ula sameeyo ayaa determines ayaa go'aamisa baa la yidhi the personality of an individual, shakhsiyadda uu qofku iska leeyahay. Saddexdani qaabka isu dhexgalaan ayay ku xiran tahay kolba uu leeyahay shakhsiyaddu ruux say noqonayso. Haddaba saddexdii waan arkaynaa, id, ego iyo super ego. mid doon arkaynaa. Id waxay leedahay if it feels good, do it. hadday kula fiicnaato samee. waxay garan tahay consequence ama cawaaqibta iyo waxyaabaha ka dhalanaya ficilka waxa ma fiirin. The first and the most primitive part of personality in the infant is the id. Waxaa la qaybta ugu horeysa ee shakhsiyadda ee ilmuhu yeesho marka ugu horeysa waxa weeyaan maxay? id-ga. The id is a Latin word that means it. Waa erey Latino oo macnihiisu yahay baa la yidhi. The id is a completely unconscious and moral part of the personality. Waxaa la yidhi id-gu waa qaybta shakhsiyadda ee gebi ahaanba muxuu ahaayey qaybta soo jeeda aan hayn ee amoralka aan akhlaaqiga ahayn. That exists oo sax iyo khalad aan kala soocin. That exists at birth, taasoo baa la jirta xilliga dhalashada, containing all the basic biological drives, kana kooban baa la yidhi dhammaan doonitaanada biology sida hunger, gaajada, thirst, oonka, sex, aggression for example. Tusaalaan kuwaas ayay ka kooban tahay. Ego nooca labaad ama qaybtan labaad ee personality-ga, the executive director baa. According to Freud, to deal with reality, the second part of personality develops called the ego. Waxaa la ruuxu si uu ula tacaalo muxuu ahaayey ama xaqiiqada ula falgalo. Qaybta labaad ee shakhsiyadda ayaa soo ifbaxda oo lagu magacaabo ego. The ego oo ka timid ego from the Latin word for I. Ereyga Latinka I u dhigma ah is mostly conscious, badanaa baa la conscious oo qayb soo jeeda and far more rational, logical and cunning than the id. Waxaa la yidhi aad waa qayb ka muxuu ahaayey ka xirfad badan, sidoo kale ka macquulsan, ka caqli badan. qaybta saddexaadna waxaa la yidhahdaa super ego oo la yidhahdo the moral watchdog, ilaaliyaha baa la yidhaha akhlaaqiga sax iyo khaladka
ee kala socda. Freud College wuxuu ku magacaabay bali the third and final part of personality. Qaybta saddexaad waa qaybta ugu dambaysa personality-ga, the moral center of personality. xudunta akhlaaq muxuu ahaayay akhlaaqda ee shakhsiyadda oo sax iyo khaladka qaybtan iyay muxuu ahaay kala garanaysaa ruux markuu qaybtan rabo. The super ego oo la macnaa baa la yidhi over the self develops as a preschool aged child learns the rules, customs and expectations of society. Waxay soo baxdaa baa la yidhi marka ilmaha weli da'da iskuulka gaarin uu barto sharciyada iyo xeerasha iyo caadooyinka iyo waxyaabaha filashooyinka ama waxyaabaha dadka ruuxa ka filanaysa ee bulshada marka ruuxu barto ayay soo ifbaxdaa. oo xilliyada ruux wuxuu kala garanaya waxyaabaha khaladka iyo saxda iyo maxaa ruuxa inuu sameeyo laga filanaya caadooyinka iyo sharciyada ay tahay ruux inuuna ka tallaabin waxyaabahaas xilligan ruuxu baranaya. For Freud baa leeyahay Freud hadaba inagu eegayna our personalities waxa weeyaan the outcome of the continual battle. Wali waa natiijada ka timaada the continual battle. Dagaalka soc joogtada ah ee loogu jiro for dominance among the ID. Waxa la yidhi qabsashada loogu jiro mid kasta uu rabo inuu qabsado. Ay ka dhaxeeya baa ID-ga oo doonaysa wax kasta wixii fiicnaa kula wanaagsan inaad ka samayso. iyo ego iyo the super ego saddexdaas qaybood dagaalka u dhaxeeya ay rabaan inay shakhsiyadaada ku qabsadaan natiijada ka dhalatay iyo shakhsiyadeena ku xiran tahay buu leeyahay Freud. This constant conflict between them waxaa la yidhi dagaalkan joogtada ee u dhaxeeya ama khilaafkan joogtada ee u dhaxeeya is managed by waxaa lagu maareeyaa psychological defense mechanisms habab difaac oo dhanka maskaxda defense mechanisms waa maxay waxa weeyaan waa unconscious tactics that either prevent threatening materials from surfacing or discuss it when it occurs. waxaa la yidhi waa farsamooyin unconscious oo aan muuqanin kuwaasoo ka hortaga baa la yidhi waxyaabaha khatarta inay dhacaan ama hadday dhacaanna qariya. Some of the psychological defense mechanisms are listed below. qayb ka mid haddaba defense mechanismskan ayaa hoos lagu tahay. Repression the koowaad repression waxaa la yidhi is a defense mechanism waa nooc difaac that involves punishing taasoo ku lug yeelata baa la yidhi punishing threatening thoughts feelings and memories inay baa la yidhi ka saarto muxuu ahaa aragtiyaha khatarta leh iyo sidoo kale dareenada iyo xusuusaha inay ka saarta baa la yidhi maskaxda ayna u saarto qaybta unconsciouska into the unconscious mind. Tusaale ahaan an Ethiopian husband who is defeated by his wife will not remember or talk it out again. waxaa la yidhi nin xaaskiisu ay tusaale ahaan oo kale ay ka adkaatay waxaa la yidhi ma xusuusanayo sidoo kalena muxuu ahay kama hadlayo mar dambe ama kama hadlayo maskaxda inuu ka saaro isku day. Denial waxaa la yidhahdaa is refusal to recognize or acknowledge a threatening situation. Denial waxaa la yidhahdaa diiditaanka inaad qirto ama garwaaqsato xaalad khatar ah. Tusaale ahaan Mr. Gremo is an alcoholic waxaa la yidhi waa alcohol shucaba khamrida who denies or doesn't accept being an alcoholic kaasoo laakiin wuxuu diidaa ama u dafiraa muxuu ahaay ama una aqbalin inuu yahay alcoholic ma uu diidaa ma yihi ku dhaaf marka denial. Regression waxaa involves reverting to immature behavior that have relieved anxiety in the past. waxay ku lug yeelataa bale ruux inuu dib u noqdo dabeecado xilli hore ahaa oo uu samayn jiray marka uu kuwaasoo murugada ka qaadi jiray uu samayn jiray marka uu murugoodo. Tusaale ahaan ama marka culays fuulo tusaale waxaa la yidhi a girl or a boy who has just entered school gabadh ama wiil ilmo yar oo hadda iskuulka lagu soo daray may go back to sucking hair or his thumb or wetting the bed. waxaa laga yaabaa baa la yidhi inuu dib ugu laabto inuu suulka nuugo ama inuu sariirta qoyo macnaheedu waxay ka dhigan tahay wetting the bed waa erey sarbeeb waxay ka dhigan tahay inuu isku kaajo. Rationalization giving social acceptable reasons for one is inappropriate behavior. qaybtan waxa weeyaan baa la yidhi inaad bixiso social acceptable reasons sababo bulshadu ay aqbali karto for one is inappropriate behavior. dabeecadaada maxaa inappropriate kan ku habboonayn markaad yaad cudurdaar ugu sameyn cudurdaar waxaad keeni mid oo mid ay bulshadu aqbali karto. Tusaale ahaan ruux baa dhibco hoose keenay laakiin wuxuu u sababeynaa wuxuu sabab ka dhigay in sababta wuxuu baranaya ay tahay muxuu ahaa aqoon ay inay dhibco inuu keenahay. Displacement waxaa la yidhi the defense mechanism is that involves expressing feelings towards a person who is less threatening than the person who is the true target of those feelings. Displacement mechanism waxaa la yidhi waa expressing feelings waxaa la yidhi inaad u muujiso dareenka toward a person shakhsi inaad u muujiso who is less threatening ruuxaasoo ka khatar yar than the person who is the true target of those feelings ruuxa sida dhabta ay dareemadan ugu socdaan. Tusaale ahaan hating your boss but taking it out on family members. waxaa la yidhi booskaaga tusaale meel baad ka shaqaysaa ninka shirkadda tusaale haysta ayaad nacab tahay laakiin caradii iyo nacaybkii aad qabtay waxaad kula dulacaysaa muxuu ahaayey qoyska. Projection the defense mechanism that involves attributing one's undesirable feelings to other people. waxaa la qaybtan waxa weeyaan inaad fi dareenadaada undesirable keen fiicnayn
inaad muxuu ahaay dadka kale aad ku tilmaanto ku ladho oo dadka kale ku riixdo tusaale ahaan a paranoid person ruuxa baa la yidhi paranoid waxaa la yidhaha ruuxa dadka kale aan aad uga shakisanayn aaminada ku qabin ee keligii socda ruuxaasi baa la yidhi wuxuu isticmaali baa la yidhi projection si uu cudurdaar ugu keeno isolation and anger kelinimada iyo sidoo kale cadhadan faraha badan ka muuqata si cudurdaar ugu keeno dadka kale ayuu muxuu ahaay ku riixaya reaction formation waxaa la yidhaha a defense mechanism that involves a tendency to act waxaa la yidhi waa nooc defense mechanism oo ku lug yeesha ama yimaada kaasoo baa la yidhi involves a tendency to act waxaa la yidhi inaad u dhaqanto in a manner opposite to one's true feelings inaad u dhaqanto baa la yidhi qaab kasoo horjeeda dareenkaaga dhabta tusaale ahaan a person who acts conservative but focuses on violence in their behavior ruux baa la yidhi u dhaqma ruux dhowrsan laakiin waxyaaba dagaalada iyo rashbada iyo waxyaabaha aad focus ka saara sublimation defense mechanism that involves expressing sexual or aggressive behavior through indirect social acceptable outlets waxaa la yidhi noocan sublimation waxaa weeyaan baa la yidhi waa inaad dabeecad aggressive oo kale jeclaan oo kale ama gardarra ama dhib ku salaysan oo kale inaad usoo bandhigto qaab ay bulshadu aqbali karto jeclaan ruux aggressive laakiin jecel baa la yidhi ciyaaritaanka muxuu ahay kubadda cagta marka sublimation waxaa la yidhahdaa dabeecad waxyaabaha ayna bulshadu ayna aqbalin inaad qaab la aqbali karo usoo bandhigto aragtida labaad hadda personality ku saabsan waxaa la yidhahdaa trait theory of personality psychologists who take the trait approach see personality psychologiyanada baa la yidhi aragtidan qaata waxay shakhsiyadda u arkaan inay tahay a combination of stable internal characteristics isugeynta dabeecado gudaha oo joogta that people display consistent kuwaasoo si joogta ay dadku usoo bandhigaan baa over time waqti and across situations iyo xaaladaha kala duwan trait theorists seek to measure the relative strength of the many personality characteristics trait theorists waxay isku dayaan baa layidhi inay cabiraan awoodda qaybo badan oo ka mid ah dabeecadaha shakhsiyadeed that they believe kuwaas ay aaminsan yihiin are present in everyone inay ruux kasta ku jiraan oo ruux kasta leeyahay oo laga sameeyo the trait approach to personality makes three main assumptions aragtidan hadda waxay samaysaa baa layidhi saddex assumption ama saddex malo ama kasoo qaad oo waaweyn bay samaysaa kow personality traits ta koowaad waxay leeyihiin assumption koowaad wuxuu leeyahay personality traits are relatively stable dabeecadaha shakhsiyadeed waa kuwa joogto ah and therefore predictable saa daraadeedna waa kuwa la saadaalin karo over time muddo waqti baa la saadaalin karaa sidaa daraadeed a gentle person ruuxa dabacsan ee naxariista badan baa tends to stay the same way across time waqti dheer gentle inuu sii haano baa la saadaalin karaa personality traits assumptionka labaadna wuxuu leeyahay personality traits are relatively stable across situations xaaladaha kala duwanna sidoo kale waa stable and they can explain sidoo kale and they can explain why people act in predictable ways waxayna sharxi karaan baa layidhi sababta ay dadku ugu dhaqmaan qaab la saadaalin karo in many different situations xaalado kala duwan tusaale ahaan a person who is competitive at work will probably be competitive at the tennis court or at a party waxaa la ruux muxuu ahaay tartami kara oo aad u wanaagsan xagga shaqada sidoo kale tennis courtiga meeshan kubadda tenniska lagu ciyaaro iyo sidoo kale xisbi hadduu qayb ka noqdona competitive mu noqo laba xaaladaha kala duwana personality traits waa relatively stable behavior saa darteed waa la saadaalin karaa xaalado kala duwan ruux siduu u dhaqmi karo assumptionka saddexaadna waxaa people differ in how much of particular personality trait they possess dadku baa leeyahay way ku kala duwan yihiin intayn la eego dabeecad shakhsiyado gaar ayay dadkaasi leeyihiin no two people are exactly alike on all traits ma jira baa laba ruux oo dhammaan dabeecadaho dhan ka siman the result natiijada taa ka dhalanaysaana is waxa weeyaan an endless variety of unique personalities shakhsiyado aan dhammaad lahayn oo wada kala duwan ayaa ka dhalan maadaama ruux dabeecadaho dhan ruuxa kale dhammaan dadka o dhan ay dabeecadaha ku kala duwan oo ruux dhammaan dabeecadaha laba ruux oo ka wada siman aan la helin so the trait theory of personality so inkastoo baa the history of the trait theory of personality taariikhda aragtidan has come through different stages ay soo martay baa marxalado kala duwan our attention here will be paid off on the 5 factor model or the big 5 theory waxaan eegi doonaa baa laakiin shantan qaybood 5 factor model iyo big 5 theory oo dhan shan dhinac oo laga eegayo personality the 5 trait dimensions can be remembered shantan dhinac ee aragtidan trait dimension dabeecadda baa layidhi can be remembered waxaa lagu xusan karaa by using iyadoo la isticmaalayo the acronym ocean ereyga lasoo gaabiyey ocean in which kaasoo each of the letters xaraf kasta oo ka mid ah is uu yahay the first letter of one of the 5 dimensions of personality uu taagan yahay baa layidhi mid ka mid a shantii dhinac waa shan xaraf kasta ayaa xarafka u horeeya waxaa laga soo qaatay shanta dhinac mid ka mid a dhinaca shanta xaraf mid buu taagan openness furfuraanshaha can best be described as waxaa loo sharxi karaa baa openness inay tahay person's willingness to try new things waxaa layidhi doonitaanka ruuxa inuu shayaal cusub isku dayo and be open to new experience
khibrad cusub inuu helaan oo inuu ruux u furaa. People who try to maintain the status quo, dadka baa la yidhi joogteeya xaaladday kusii jira jecel inay kusii jiraan, and who don't like to change things, dadka aan rabin inay isbeddel sameeyaan, would score less on openness. Openness-ka baa la yidhi haddii la cabiro score yar hoose ka keenaya oo openness-koodu way yar tahay. Dadka noocaasee xaaladday ku jiraan inay kusii jiraan rabo. Dadka laakiin furfuran ee rabo inay wax cusub bartaan, openness-koodu score sare keenaya. Conscientiousness qaybtan waxaa la yidhahdaa damiirka. Refers to waxay ka dhigan tahay a person's organization and motivation. Waxaa la yidhi with people who score high in the dimension being those who are careful. Waxaa la yidhi dadka conscientiousness-koodu ama muxuu ahaay damiirkoodu u sarreeyo. Waa dadka baa la yidhi who are careful about being in places on time. Waa dadka baa la yidhi ka taxadara inay waqtiga loogu talagalay ku yimaadaan baa la yidhi goobaha. And careful with belongings as well. Sidoo kalena ashyaada ama waxyaabaha ay dadka kale leeyihiinna sidoo kale ka taxadara. Someone scoring low, ruuxa laakiin damiirkiisu ama qaybtani ay hooseysa baa la yidhi dimensionkan score hoose ka haystaa. Tusaale ahaan might always be late to important social events. Badanaa waxaa la yidhi ruuxa noocaasa inuu ka daha laga yaabaa dhacdooyinka muhiimka or borrow belongings, ama waxaa laga yaabaa inuu ruux ka soo qaato ruuxu alaab iska lahaa inuu ka soo qaato and fail to return them or return in poor coordination. Waxaa laga yaabaa inuu ku fashilmo inuu ruuxii dib ugu celin waayo ama uu dib u celiyo laakiin sidii loo baahnaa inuu dib ugu celin. Extraversion qaybtan waxaa la yidhahdaa maxay? Waxaa la yidhahdaa waxaa ku macno bulshaaweynimada. It's a term first used by Carl Jung. Waa erey uu markii hore isticmaalay baa la yidhi Carl Jung ninka la yidhahdo. Who believed that kaasoo aaminsanaa baa la yidhi all people could be divided into two personality types. Dadkoo dhan ba in laba nooc oo shakhsiyada loo qaybin karo oo la kala yidhahdo extraverts iyo introverts. Extraverts wuxuu ku qeexay are outgoing and sociable, whereas wuxuu ku qeexay baa la yidhi extraverts inay yihiin outgoing and sociable, dad furfuran oo sidoo kale bulshaawiga oo bulshada dhex galay, whereas introverts are yihiin more solitary and dislike, dad baa la yidhi kelida jecel and dislike sidoo kale nacib being the center of attention, inay noqdaan attentionka meesha uu hayo ruuxa la fiirinayo inay noqdaan. Agreeableness refers to the basic emotional style of a person. Waxaa la yidhi agreeableness waxay ka dhigan tahay qaabka muxuu ahaay dareen ee shakhsiga. Who may be easy going, ruuxaasoo laga yaabaa inuu noqdo easy going, ruux degan, friendly and pleasant, tusaale ruux fiican. Waa ruuxa markaa agreeableness-kiisu ay tahay at the high end of the scale, cabirka meesha ugu sarreyso. Agreeableness-kiisu ruuxa marka aad u sarreyso waa ruux easy going oo ruux degan oo fiican weeyaan. Or ama inuu noqdo laga yaabaa crabby and hard to get along with. Ruux baa la yidhi aan faraxsanayn, ciriiri nafsiya markasta dareemaya, sidoo kalena adag tahay baa la yidhi inuu dadka dhex galo. Waa marka low at the low end xagga ugu hooseysa. oo agreeableness-kiisu ruuxa markay low tahay waa ruux grumpy oo aan faraxsanayn, crabby ruux ciriiri nafsi markasta ku jiro oo dareemaya ciriiri nafsiya, sidoo kale aan dadka kale inuu dhex galo ay adag tahay. Neuroticism iyaduna waxay ka dhigan tahay refers to emotional instability or stability, deganaansho la'aanta dhanka dareen ama deganaanta dhanka dareen bay ka dhigan tahay. People who are excessively worried, waxaa la yidhi dadka aadka excessively worried, over anxious and moody, waxaa la yidhi dadka aadka u walwalsan, walaaca badan hayo, sidoo kale isbeddelkooda maskaxeed ama maskaxda isbedelayso, would score high on this dimension. Dhinaca marka la fiiriyo score hoose ka keenayaan. Whereas those who are more even tempered and calm could score low. Dadka baa la yidhi degan ay ka keenayaan baa la yidhi scorekooda uu low yahay. oo neuroticism-kiisu waa high, ruuxa muxuu ahaay aadka walwalsan ee maskaxdiisu isbedelayso, ruuxa laakiin degan waa low. Aragtida saddexaad, humanistic theory of personality. Humanistic approaches to personality emphasize people's inherent goodness and their tendency to move toward higher levels of functioning instead of seeing people as controlled by unconscious unseen forces. Waxaa la yidhi aragtidan waxay leedahay personality aragtiyahani baa waxay caddaynayaan people's inherent goodness. Waxaa la yidhi wanaagga muxuu ahaay ruuxa la socda ee ruuxu u dhaxlay, and sidoo kale their tendency to move toward higher levels of functioning, iyo sidoo kale dadku u leexashada u janjeeraan baa la yidhi inay gaadhaan baa la yidhi heer sare oo shaqo instead of seeing people. meeshii loo arki lahaa ama aragtidani meeshii u arki lahayd baa dadka inay tahay dad ay kontaroolaan xoogag aan muuqanin. oo aragtidaasaa waxaa qabtay psychodynamic baa qabtay. ana sidoo kale set of stable traits, iyo sidoo kale koox dabeecado oo joogtihiin ruuxa maamulaan, oo sida ay
tried approach ka qabtay labadaas si ka duwan bay iyadu qabtaa oo dadku xorriyad bay haystaan bay leedahay Carl Rogers and self concept ninka Carl Rogers la yiraahdo iyo sidoo kale self concept like Maslow sidii Maslow oo kale Rogers believed that Rogers wuxuu aaminsanaa baa human beings are always striving to fulfill their innate capacities and capabilities bini'aadamku baa inay u dadaalayaan ama u halgamayaan u ordayaan inay buuxiyaan wuxuu ahay awoodooda inay dhamaystiraan baa awoodooda dabiiciga iyo sidoo kale awoodahooda to become say u noqdaan everything that their genetic potential will allow them to become shay kasta oo awoodooda hidde u ogolaanaysa inay noqdaan oo wax kasta uu noqon karo inuu ruux noqdo This striving to fulfillment is called self-actualizing tendency. Hal dadaalkan ruux raba inuu arinta gaadha la yiraahdo self-actualizing tendency. An important tool in human self-actualization is the development of image of oneself or self-concept. Hal shay muhiim u ah baa ruuxu inuu naftiisa ka raaqsado. Isu xawayaan ruuxu inuu horumariyo baa sawir uu ka haysto naftiisa. Real and ideal self ayaa jira hadaba. Two important components of the self-concept. fikirka ama aragtida wad sawirku ruuxu iska haysto laba ay qaybsantaa real iyo ideal waxay kala yihiin baa labada qaybood the real self oo ah one's actual perception of characteristics traits and abilities that form the basis for striving for self actualization waxa la yiri waa fahamka dhabta dabeecadaha iyo sidoo kale awoodaha ruuxu leeyahay kuwaas oo sal u ah baa la yiri inuu naftiisa garaqso inuu gaaro ideal self iyadana waxa la yiraahdaa the perception of what one should be or would like to be fahanka ruuxu ka haysta waxa uu rabo inuu noqdo waxa uu ay tahay inuu noqdo ama waxa uu rabo inuu noqdo sala waxa hadda tahay iyo waxa doonaysa inaad noqoto kaliya the ideal self value primary comes from waxay ugu horeyn ka timaada those important significant others in one's life dadka value noloshaada muhiimka most often the parents badanaana waalidka rogo qaabkii walba ku dhiirigelinay waan arki doonaa positive regard xagga dambe Rogers believed that wuxuu aaminsanaa baa Rogers ninka la yiraahdo when the real self and the ideal self are very close waxa la marka ay labadana aad isugu dhow yihiin or similar to each other ama isku mid yihiin people feel dadku waxay dareemaan buuri competent and capable dad karti leh oo awood leh ruux karti leh oo awood leh ruux dareemay haday labadana ay isu waafaqaan ama ay isu dhawaadaan but when there is a mismatch between the real and the ideal selves laakiin hadii isku aadis la'aan ayna isku aadisnayn baa labadan anxiety and neurotic behavior can be the result waxa la walaac iyo sidoo kale dabeecad murugo ku saleysan ayaa natiijada ayaa natiijo ka noqon karta oo ka dhalan karta conditional and unconditional positive regard Rogers defined positive regard hadda maxaa la yiraahdaa positive regard wax ku xiran iyo mid aan wax ku xirnayn positive regard wuxuu ku qeexay baa Rogers as inay tahay warmth naxariis affection love and respect waxa la yiraahdaa kalgacayl jacayl ama iyo sidoo kale muxuu ahaayay xushmad that comes from the significant others taasoo ka timaada dadka kale muhiimka saalaan waalidka admired adults dadka weyn ee la tixgeliyo saaxiibada macallimiinta waxyaabaha kaaga yimaada la yiraahdo positive regard ee soo saalaan oo kale naxariista iyo xushmada iyo dhiirigelin waxyaabahaas in people's experience positive is vital to people's ability to cope with stress bali ruuxa in saalaan la siiyo bali dhiirigelin positive ah wuxuu ku xidhnayn positive in la siiyo waxaan jeedaa in lagu siiyo dhiirigelin togan in lagu siiyo waxa la yiri waxay muhiim u tahay awood oo ruuxu leeyahay to cope with stress inuu la tacaalo baa la yiri stresska murugada and to strive to achieve self actualization iyo sidoo kale inuu ruuxu ku dadaalo inuu gaaro inuu naftiisa ka waqsado oo awoodihiisa oo dhan karto Rogers believed that unconditional positive regard aan ku xidhnayn waxba ayuu wuxuu aaminsanaa baa la yiri Rogers ama love affection and respect ama si kale hadaan dhigno jacayl iyo sidoo kale xushmad with no strings attached waxba ku xidhnayn waxba ku lamaanayn is necessary ayaa muhiim u ah for people to be able to explore si ay dadku baa la yiri u soo muxuu ahay u sahmiyaan ama u soo daafuraan fully si dhameystiran all that they can achieve and become wax kasto ay ku guuleysan karaan ay noqon karaan unfortunately laakiin nasiib darro baa some parents qayb kamid ah baa waalidka qaarkii ama spouses lamaanayaasha qaar and friends iyo sidoo kale saaxiibada qaar give waxay siiyaan baa conditional positive regard ama dhiirigelin wax ku xidhan which is also a lot of affection respect and warmth that depend or seem to depend on doing what those people want taasoo baa la yiri u muuqata inay ku xiran tahay wax ay dadkani rabaan inaad qabato oo jacaylka iyo xushmada iyo qadarinta waxa lagu muujino haday sida ay rabaan aad samayso salaam arki doona halkan su'aalaha ku yaal here is an example salaam waxa la yiri a freshman Tirhas was thinking about becoming a math teacher
waxaa la yidhi gabadhan freshka ee tirhaas la yidhaha waxay ka fikiraysaa inay noqoto macallin xisaabeed a computer programmer dhanka computerka inay noqotay rabtay sidoo kale Charlotte also a freshman gabadh iyaduna sidoo kale ardayda cusub ah oo Charlotte la yidhaahdo ayaa iyaduna already know that she was going to be a doctor horey waxay usii ogeydba inay dhakhtar noqon doonto while Tira's parents had told her that what she wanted to become was up to her halka baa la yidhi Tirahaas waalidkeeda ay u sheegeen waxa ay noqonaysa inay iyada u taalo and they would love her no matter what child waxa ay dooni ahaaday ay weli jeclaan waxay dooni ha gashay inay jacaylkoodii ay u hayeen oo ay haynayaan Child's parents had made laakiin waalidka Childtu waxay u cadeeyeen baa had made it very clear waxay cadeeyeen baa to her as a small child iyadoo ilmo yaraay waxay u sii sheegeen that they expected her to become a doctor inay rajeynayaan inay dhakhtar noqoto she was hadaba under the very impression that if she tried to choose any other career waxaa la yidhi waxaa saaran baa cadaadiska ah haddii ay doorato xirfad kale oo ay wax kala barato she will lose her parents love and respect qadarintii iyo jacaylka ay waalidkeen hayeen inay lumin karto Tira's parents were giving her unconditional positive regard Tira's baa la yidhi Tira's waalidkeed waxay siinayeen positive regard aan waxba ku xidhnayn waxaa la yidhi waxaad dooni baro muxuu ahaayey gabadhanadii baa tahay maxaa waa ku jecelahay laakiin Child's parents waalidka Childtu were giving her conditional positive regard waxay siinayaan baa la yidhi positive regard wax ku xidhan oo waxaa la yidhi waa inaad dhakhtar noqotaa haddaad dhakhtar noqonin gabadhanadiina tihid meeshaad dooni ka dhac tusaalahaan Childtu was not as free as Tira's Childtu baa la yidhi muxuu ahaayey xor uma ah sida Tira's oo ay xor u tahay oo kale to explore si ay muxuu ahaayey u sahamiso potential abilities awoodaheeda ku kaydsan si ay u soo daafurto sida Tira's oo kale xor uma halkaas waxay nooga cutubkii 6 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh